بسم الله الرحمن الرحيم warbixinteenan maanta ayuu wixinu diradda ku saaraynaa laba qodob oo kala ah sirdoonka Mossad oo Netanyahu uga digay Ruushka iyo waliba maxay tahay shanta dabin ee Mareykanka uu ku dhacay intii uu socday dagaalka uu kula jiro dalka Iran laanta socdaalka Mossad ee Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in Ruushka uu si toos ah ugu soo biiray dagaalka lagula jiro Iran waxayna sheegtay in Ruushka dagaalka uu horboodayo waxayna naga burburisay ayay tiri Mossad afar goobood oo ciidanka Israa'iil muhiim u ahaa aqalka cad ee Mareykankana waxa laga dareemayaa cabsi aad u xoogan oo dhanka Ruushka ah oo ay kaalmo sirdoon u fidinaysa Iran Tel Avivna waxay sheegtay sida laga soo xiganayo warbixino rasmi ah ay xaqiijinayaan in Ruushka dagaalka toos u soo galay isaga oo sabab u ahaa inay Iran gaarto goobo aad muhiim ugu ahaa Israa'iil markaana ka soo baxday natiijo aan marnaba la filanaynin warbixino laga soo xiganayo ila wareedyo Mareykan ah ayaa waxa ay xaqiijinayaan in Ruushka uu toos u soo galay dagaalka nidaamka Tehran ay ku kaalmeynayso taageero sirdoon kaalmadan sirdoon ee Ruushka uu siinayo Iran ayaa waxa ay keentay sida ay warbixintu tiri in la xadido goobo ciidan oo Israa'iil leedahay iyo goobaha ay yaalaan hub ay leeyihiin ciidanka Mareykanka ee gobolka bariga dhexe midda ayaa keentay in Iran ay beegsato goobo halbowle u ahaa Mareykanka iyo Israa'iil warbixintu ayaa sidoo kale tilmaamaysa in Iran ay burburisay afar xarumood oo ay leedahay wasaaradda difaaca Israa'iil dhulka lala simay xarunta laga hogaaminayay ciidanka cirka goobo ay ku nastaan ciidanka Israa'iil iyo waliba hoy ay lahaayeen isla ciidanka Israa'iil halkaasi oo ay ku dhinteen boqolaal askar oo Israa'iiliyiin intaasi waxa sii dheer sida ay warbixintu sheegtay inay Iran burburisay nidaam difaaceed muhiim u ahaa sirdoonka Mossad warbixinta ayaa ka digtay saacado ka hor halista ah in Ruushka uu ku soo biro dagaalka iyadoo oo tilmaantay in sirdoonka Ruushka ay suuragal tahay xadidida hadafyada halbowlaha u ah Israa'iil si liishaman oo hadafka lala gafaynin iyo waliba ku hagida gantaalada Iran qaab ay u geysan karaan burbur baaxad weyn oo saameyn badan reebaya Trump isagoo ku sugan aqalka cadna waxa uu cadeeyay kadib markii uu hubsaday in qorshaha Ruushka uu ku difaacayo nidaamka Iran si awood leh ayaa fariintiisii ugu dambeysay waxa uu ku yiri ciidanka ilaalada kacaanka ma isdhiibayaan Xisbullahna ma dhamaanayso Trump ayaa dadaal isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn waxa uu ku bixiyay ku qancinta Putin inuu dagaalkani dib uga digo kaasi oo markaasi ku soo dhamaaday fashil Trump iyo Netanyahu ayaa si weyn uga walaacsan taageerada joogtada ah ee Ruushka uu siinayo Iran Putin ayaa isagana sheegay sida ay warbixintu cadeysay fariintiisii ugu dambeysay ee uu diro aqalka cad ilaa iyo hadda taageerada aan siinay Iran waliba waxba ma aha aad ay u yar tahay Ruushka waxa uu diradda saarayaa dagaal baahsan oo aan ka qaadanayno doorka nooga aadan ee ugu weyn Iran waxaan u bandhignay in hubkeena uu soo galo Iran iyo gantaaladeena iyo waliba ciidankeenaba hase ahaatee waxay noo xaqiijiyeen inay iyagu wali ay ku filan yihiin edbinta Netanyahu keligooda Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay ku kalsoon yihiin ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran waxayna xaqiijinayaan ayuu yiri guulo waaweyn gaar ahaan howlgallada ay ka wadaan dalkooda iyo waliba difaaciisa waxaana ognahay ayuu yiri sida ay u burburiyeen hadafyadii ugu muhiimsanaa ee ay beegsadeen isbuucii ugu dambeeyay gaar ahaan nidaamyadii difaaca Israa'iil iyo waliba xarumaha hoggaanka dagaalka waxaana noo muuqata ayuu yiri sida ay howlgalkooda u gudanayaan ay weli u tahay heerkii loo baahnaa weli sema bilaaban xilligii ay Ruushka si toos ah ugu biiri lahaayeen dagaalka haddii ay ku soo biirayaanna ma jiri doono dhagax dul saarnaan doono haddaba maxay yihiin shanta dabin uu ku dhacay Mareykanka intii uu ku jiray dagaalka uu kula jiro Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhacay shan dabin intii uu socday dagaalka Iran oo ay markaasi u dhigeen Ruushka iyo Shiinaha sida ay sheegtay mareegta Newsweek ee Mareykanka Trump ayaa ku dhacay shan dabin oo jab ah oo uusan doonaynin inuu galo kuwaasi oo si kabaaran digid leh ay ugu dhigeen dawladaha Shiinaha iyo Ruushka oo xifaaltan xoogan iyo waliba dagaal qabow kala dhaxeeyo Mareykanka dabinka koowaad
Trump ayaa wax uu ka meermeeraystay inuu ka fogaado oo uusan lugaha la gelin dagaalka tamarta, balse Israa'iil iyada oo caraysan oo xakamaha lumisay ayaa waxa ay weerar toos ah ku qaaday xarumaha tamarta ay Iiraan leedahay. dabadeedna waxay Iiraan uga aargoosatay inay burburiso xarumaha tamarta ee xulafada Mareykanka oo ay kala yihiin Israa'iil iyo waliba wadamada Carabta ee deriska la ah Iiraan. dabinka labaad, Mareykanka ayaa wuxuu isku dayay inuu difaaco wadamada Khaliijka isaga oo diiradda saarayay inuu fuliyo heshiisyadii difaac ee ay wada galeen wadamada Khaliijka iyo waliba Mareykanka. hase ahaatee natiijadu waxay noqotay inay Khaliijka ay difaacaan Mareykanka, waxayna xulafada Carabtu ku eedeeyeen in Mareykanka uu si ku talagal ah uu u beegsaday tamarta Iiraan isagoo og inay Iiraan uga jawaabayso inay tamarta Khaliijka burburinayso. midaana ay dhalisay in Iiraan gantaaladeeda balaastiga ah iyo diyaaradaha iswada ee isqarxiya ku duqeeyeen xarumaha tamarta ee wadamada Khaliijka. dabinka saddexaad, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhacay dabinka Ruushka iyo Shiinaha u soo maleegeen oo dadaal weyn ku bixinaya inay la wareegaan saldhigyada Khaliijka uu Mareykanka ku leeyahay. marka Khaliijku ay dareemaan in amaankooda Mareykanku ilaalinaynin, Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa saldhig already waxa ay siiyeen Ruushka iyo Shiinaha. Ruushkana waxa uu doonayay inuu gaaskiisa Yurub u iibiyo kana faa'iideysto, midaana waa uu ku guuleystay oo cunaqabataynta ayaa laga qaaday. dabinka afraad, dagaalka Iiraan ayaa dabin u dhigay ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe, iyadoo xulafada Mareykanka sida Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada kale diideen inay ka caawiyaan furitaanka Hormuz. Mareykanka ayaa keligii looga kala baxay naarta bariga dhexe. dabinka shanaad ee ugu dambeeya uu ku dhacay Mareykanka ayaa waxa uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhacay dabin kale oo dagaalka Iiraan ah, gaar ahaan dhibaatada kor u kaca tamarta ay ku yeelanayso gudaha Mareykanka iyo doorashada soo socota, halkaasi oo uu markaasi ku lumin doono codbixiyayaasha, midaas oo sabab u tahay sicir bararka iyo waliba kor u kaca tamarta.